qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa gaar ahaan degmada Axmed Dhagax waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen wadada isku xidha Tootan ilaa jaamacadda Hargeysa waxaana sheegeen in wadadaasi waxba laga qabanin 7 sano oo xukuumadda madaxweyne Silaani jirtay iyo sidoo kale golaha deegaanka ilaa xilligii la doortay dadweynuhu waxa arrimahaasi dhaliilo culus u saaran xukuumadda iyo golaha deegaanka oo ugu horeeya maamulka caasimadda waxaana hadaladoodii ka mid ahaa wadadaasi oo ka mid ah wadada ugu weyn degmada Axmed Dhagax oo magaalada Hargeysa waxaa ka mid tahay wadooyinka isku xidha dhowr degmo oo ka mid tahay degmada 13 May iyo Axmed Dhagax iyo sidoo kale Maxamuud Haybe balse dadweynaha kala duwan waxay dhaliilaha ugu badan saarayaan inay ka gaabisay guud ahaanba xukuumadda iyo waliba golaha deegaanka ee maamulku madaxda ka yahay xogayihii hore dowladda hoose iyo waliba qaar ka mid ah dadka iyagu ka soo jeeda deegaanadaasi ayaa iyagu sheegay inta badan degmooyinka Axmed Dhagax Maxamuud Haybe iyo waliba Gacan Libaax waxay ka mid yihiin goobaha ugu adeega yar oo ay goobaha adeegyada ugu yar oo ka furiyay maamulka caasimaddu waxaanu kula baxay magacyo iyo waliba qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan xaafadaasi ayaa agtayda jooga bal adoo magacaaga ku bilaabaya iyo waxa aad ka oranayso wadada bismillaahir rahmaanir rahiim ayuu magacaygu yahay Axmed Siyaad Maxamuud waxaan ka oranayaa wadada weyn ee iska xidha Tootan ilaa jaamacadda Hargeysa maayiradan waxba kama qaban amba dawladda cusub ee kulmiyaba inkastoo airportka la sameeyay ilaa Tootan haddana wadada galbeed u kacda wali dhagax lagama qaadin amba waxba lama dhigin wayna jajaban tahay waxaan ka codsanaynaa maayirka inuu si fiican wadooyinka u hagaajiyo si wadooyin kale u hagaajiyo dadweynaha maxaa soo jeeday dadweynaha waxa soo jeeday in iyaguna wadada ka dulkaan wadada biyaha iyo qashinka ka daayaan dawladuna ay ka qabato gaar ahaan maayirka caasimadda iyo golaha deegaankaba iyo inta laga doortay degmada Axmed Dhagaxba aad iyo aad baad maasanta imika ku sugannahay bartamaha wadada Tootal iyo jaamacadda Hargeysa waxa garabkayga taagan oo aan wadada kula kulmay mawliid xogayihii hore ee dawladda hoose bal waxaan isagana wax ka weydiin doonaa inkastoo isagu muddo kooban joogay oo muddo aad u yar ay ahayd xilligii uu joogay laakiin uu ahaa nin in badan ku soo dhex jiray dawladda hoose caasimadda Hargeysa oo degmooyin kala duwan ka soo shaqeeyay kala soo jeeda degmadan laftigeeda bal xogaye maxaa hortaagan amba caqabada koobaad ee hortaagan maxay tahay ilaa intii golaha deegaanka la Hargeysa la doortay lama dhisin wadada isku xidha jaamacadda ilaa Tootal waa maxay caqabada hortaagan bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina nabiyina mawlana muhammad aad iyo aad baa mahadsantihiin runtii sida xoogaalka ugu tihiin waxyaabaha ka jira caasimadda ama wadada tan maanta ka hadlaysana dadweynaha ka wareysanayseen aad baa ugu mahadsantihiin waada saxaafadda daatiin run ahaantii anigu haddaan ka warramo muddadii koobnaydan joogay waxaanu bilownay muddadii koobnaydan joogay wadada isku xidha madaarka Hargeysa ilaa saldhigga dhexe downtownka wadadaasi runtii iyaduna waxay ahayd wadda halbowlaa oo loo baahnaa oo aan muddo fara badan sida tan oo kale waxba laga qaban bay ahayd runtii wadadaasi iyo tan imanka gacanta lagu hayaaba waxay ku jireen miisaaniyaddii sanadkii 2017 ayay ku jireen runtii waddo kastoo la qabtaa mashaariicda sanadkaasunbay hadba waddada ku jirta ayuunbaa la qabtaa waddada aad arkaysana madaarkaanu ka soo qaadnay waddadaa madaarkaanu ka soo qaadnay ilaa downtownkaanu geynay xilligaan ahaa xogayaa dawladda hoose waxay ku jirtaa miisaaniyadda sanadkii ku jirtay taa dambe imika dhakhtarka weyn dabadiisa ee la wado ilaa tegaysa tiyaatarka dabadiisa iyo taniba waxay ku jiraan miisaaniyadda sanadkan hase yeeshee waddadani miisaaniyadda kumay jirin runtii dadweynaha xaafadda ama maayirka caasimaddu runtii waa laga wada hadlay waddadan lafteeda dadweynaha xaafadda waana u soo bandhignay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland oo aad iyo aad baan salaamayaa caasimadda Hargeysa markaad eegto wadooyinkii caasimadda Hargeysa wadooyinka halbowlaha u ah waxa kamid ah wadadan iminka aan joogno waa wada isku xidhaysa laba degmo saddex degmo isku xidhaysa degmada Maxamuud Haybe degmada Axmed Dhagax iyo waliba degmada 13 May waxay tagaysaa jaamacaddii ugu weyneed ee qarankani lahaa ee jaamacadda Hargeysa ardaydu mar walba halkan anagu sanadadii aan dhigan jirnay jaamacadda Hargeysa waxaan wadadan mari jirnay aan soo gali jirnay wadadan 4 galabnimo jaamacadda Hargeysa 5 aan gaari jirnay iyadoo xiisadii ay dhamaatayba maayirka caasimadda Hargeysa waxa loo doortay inuu maayir u noqdo shanta degmo ee caasimadda Hargeysa maantana waad ogtay degmadan Axmed Dhagax maayir Jiciir bay noogu dameeyay wax qabad oo inoo qabto
wadooyinkii uu maayir jicir sameeyey waddo ka dambeysay oo laga sameeyey xaafadan Axmed Dhagax ma jirto waddadii halbowlaha u ahayd ee ugu muhiimsaneed waa waddadan sidaad arkaysaan iska daa inuu gaariga uu kaaga burburee dadkiiba caafimaad darro ka qaaday waayo mar kasta boorka waddadan ka kacay habaaska boorka ka kacay waxay saameyn caafimaad ku yeesheen dadkii dadweynaha meesha deganaa waxa taa ka sii daran cusbitaalkii aadna aadan ayaaba meesha ku yaala cusbitaalka aadna aadan dad badan oo bukaana baa jiifa bukaankii mushkiladda ugu badan ee haysataa waxa weeyaan soo gaarsiintii bukaankii iyo waliba hoomkii gawaadhida ee maxay ahaydey oo ku ciyay bukaankii kaasi oo hoon kiciyaya iyo mushkiladda haysata gawaadhida sumxadda haysata ay saameyn ku yeelato dadka cusbitaalka jiifa waxaan ugu baaqaynaa maayirka waxaan leenahay maayir isku xidhaa labada degmada 31 May iyo Axmed Dhagax waxa weeye wadadani waa wada halbowlaa waa wado ay maraan baabuurta xataa tagaysa markay tagayaan madaarka ay degmooyinka Maxamuud Haye Maxamed nooga tagayaan markay Axmed Dhagax ko 31 May tagayaan marka jaamacadda Hargeysa la tagayo dhakhtarka aadna ay hormarta aadan dhakhtar road baa la yiraahdaa wadadan waxa ayaan darraha daba ah in wadadaas 30 sanadood ee Soomaaliya 30 sano ku dhawaad maanta Soomaaliya jirta iyo 30 sanadood hore oo Soomaaliya iyo Soomaaliya isku jireen 60 ka sanadood wadada hal mar ayuu siyaad bar dhisay waa ayaan darro weyn in qaran dhan oo Soomaaliya waxaad moodaa wadadaas maanta inay ku taalo meelo rural area meelo miyiga inay ku taalo ayaad moodaa wadadani oo ay miyi ku taalaba oo caasimadba ka wali waa ceeb waa ayaan darro weyn weeyaan in wadada alxamdulilaahi rabbil caalamiin aniga Axmed Cusmaana oo muwaadiniinta Soomaaliland ka mid ah odayaasheeda waxaan horta hambalyeeyaa marka hore Ilaahay baan mahad u naqaya barlabaadka golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa annaga doorannay kuwaanu doorannana maanta mayno hadday xumaadeen oo wixii anagu aanu ka doonayna ay fulin waayeen ku caayimayna annaga doorannay wadooyinkeena loo sameeyana oo annaguna cashuurta bixino diyaar baan noonay laakiin tii waxaan aaminsanahay golii deegaankeenu doorannay inay wixii aanu doorannay ka baydheen uu kow ka yahay maayirku isagoo oo kaambay galay xusbiga kulmiye uma annaan doornay waxaanu doornay maayir caasimadda Hargeysa ka shaqeeya marka waxaan ku talinayaa annaga idin doornay golaha deegaankow maayirka annaga doornay waa maayirkayagii haddaanu daantaanahay haddaanu daantanay garanayna afka noocaasa waa maayirka caasimadda waxaan leeyahay ku soo noqo roorkaanu ku doornay waa inaad cashuurtana aanu ku bixinno oo xaafadii Hargeysa aanu ka midnay inaanu cashuurta bixinno diyaar baan noonay inaanu idin ammaano wax qabadkiina muujino wadooyinka quruxda badan sameeyeen waan idinku hambalyeynayna waxaanu idinkula talinaynaa doorasho xor iyo xalaal dalka ha ka dhacdo wixii xukuumadda u shaqeynayaan inay xukuumadda ku ekaadaan oo aanay asxaabta gelin waayo iyagu maaha asxaabta tartamasa waa xukuumaddii dalka hagaysay haddii dalada hay qasbina waxaan ku talinayaa anigoo odayaasha magaalada ka mid ah waanu idiin wada ducaynaynaa kulligiin ninnaba annagu habaari mayno ninna caayi mayno kii wax qabtayna allah ilaahay kor ha u qaado kii aan wax qabanno roorka allah ku soo celiyo ay ku istaagto wadada tagta jaamacadda Hargeysa waana goob guud ahaanba aanay oolin wax laamaya oo iyadu ciid isu bedeshay ilaa iyo halka total iyo halka ay wadada jaamacadda iyo iska galaan wadadaasi daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa waraysigaasi iyo waliba aragtidaasi dadweynaha ayaan ku eegaynay sida ay dadweynuhu arkaan wadadaasi iyo dhismalaanteeda waajibka koobaad waxa uu saaran yahay xukuumadda iyo golaha deegaanka ee maayirka caasimadda Hargeysa uu hogaaminayo sidoo kale waa mid loo baahan yahay inay ka qayb qaataan dadweynaha ka soo jeeda halkan iyo waliba sidoo kale dadweynaha ganacsatada ah waxaan Space Channel TV Hargeysa